mas-uuliyiin iyo saraakiil ciidan uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa kormeer howlo amni ah ku tegay degmada yakshiid si ay ugu kuurgalaan isbeddelka amniga ka jira caasimadda kadib markii la kordhiyey tirada ciidamada amniga ee degmooyinka ka shaqeyn doona. mas-uuliyiintan ayaa kormeer socod ah oo saacado qaatay ka bilaabay saldhigga degmada yakshiid iyagoo socod ku marayay wadooyinka mara xaafadaha degmada yakshiid, waxaana inta ay kormeer ku jireen ay dhiirigelinayeen ciidamada u taagan badbaadinta shacabka ee baarayay gaadiidka kala duwan. waxay sidoo kale la kulmeen ganacsatada dukaamadaha ku leh xaafadaha yakshiid iyo odayaasha iyagoo u korgelayay xaaladaha amniga quseeya. sidoo kale gudoomiye tuulax iyo saraakiishii kale ayaa inta ay kormeerka socodka ku jireen waxay booqdeen suuqa jungal qeybihiisa kala duwan iyagoo dhiirigeliyey ganacsatada suuqaasi. maamulka gobolka banaadir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in dib loo furo garoon ay dhalinyarada xaafadda jungal ku ciyaaraan kubadda cagta, kaas oo xirnaa muddo 6 bilood ah kadib markii ay argagixisada ay maamulka garoonka ku amreen in aysan furi karin. hase ahaatee maamulka gobolka banaadir ayaa dib u furay isagoo amar ku bixiyey inaan dib loo xiri karin si dhalinyarada loo dhiirigeliyo. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa warbaahinta qaranka u sharaxay kormeerkani iyo ujeedkiisa. kormeerkan wuxuu uga duwan yahay kormeeradii hore aan samayn jirnay. kormeerkan waa lug baabuurteennii hadda ma wadano, waxaan uga soo tagnay saldhigga waa lugeynaynay. halkan waxaan ku nimid lug, waxaana ku laabanaynaa lug si aan nolosha iyo dhabta ah laamigan maanaan maraynin. by the way xaafadaha iyo luuqluuqyada waxaan soo marnay suuqii jungal. sidii aan u soconnay waxaan ku soo dhacnay garoonkan hadda aan joogno oo xiran, oo sida la ii sheegay xirnaa 8 ama 5 bilood 7 bilood ku dhawaad. waxaana xiray nimanka nabadiidka ahaa oo dadkii garoonka lahaa taleefanka kala soo hadlay si ay u xiraan ayagoo diidan maaragta horumarka iyo isdhexgalka dhalinyarada halkan ka sameynayso. waxaa noo suurto gashay inaan dib u furno garoonka isla caawa oo aad arkaysaan dhalinyaradii degmadan 8 bilood dhowrka bilood loo diiday inay ku cayaaraan. waxaa mas-uuliyad naga saaran annaga inay helaan goob ay ku cayaaraan. waxaa mas-uuliyad naga saaran amnigooda. haddii garoonkan uu dib dambe uu u xirmo waxaa mas-uuliyaddeeda iskala qaybta guud ee booliska, maamulka degmada, taliska saldhigga iyo qaybta bari ee saldhigga. kormeerkaana caawa keliya kuma ekaan doono. waaxda jungal caawa joognaa, habeen dambena waxaa kalaan tegi doonaa degmooyin gobolka banaadir. waa bedelnay oo waa lugeynaynaa. waxaan rabnaa inaan si dhab ah xaafadaha u tagno. kormeerkan ayaa noqon doonaa mid joogto ah oo lagu tegi doono 17 degmo ee gobolka banaadir si loo xaqiijiyo sugidda amniga caasimadda loona xoojiyo wada shaqeynta shacabka iyo laamaha amniga. nuur saciid taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.